qaabeeyaha qorsheeyaha iyo jiheeyaha siyaasadda Somaliland siyaasi damal ah oo hogaamintiisa lagu wada qanacsan yahay siyaasigii ugu horreeyay ee soo kordhiyay isbahaysiga siyaasadeed ee dhexmara siyaasiyiin iyo xisbiye afkaartoodu kala durugsan tahay siyaasi astaantiisu ay tahay midnimada wadajirka iyo wax wada lahaanshaha bulshada siyaasi ku sifoobay fulinta heshiisyada iyo ballamaha siyaasadeed ee uu galo siyaasi tudhaalo leh oo la dareer ah dadkiisa iyo dalkiisa xaalad kastoo ay ku sugan yihiin siyaasiga hogaaminaya awoodda shacabka isbeddeldoonka ah ee sugaya sanduuqa doorashada 13 Noofembar kaasoo isu diyaarinaya madaxweynaha lixaad ee Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro siyaasiga sooyaalka siyaasadda Somaliland ku soo kordhiyay isbahaysi dhexmara xisbiyada siyaasadda oo leh hal ujeedo oo heshiis lagu wada yahay kaasoo noqday marin fudud oo lagu maquunin karo awoodda xisbil xaakimka laguna midayn kara aragtiyaha xisbiyada mucaaradka isbahaysiyadaasi oo sababay guulo waaweyn oo siyaasadeed oo ka dhacay dalka 25 sannadood ee u dambeeyay heshiisyada isbahaysi ee guulaystay ayaa dhammaantood aanay ka dhalanin wax khilaaf ah oo ku saabsan fulinta qodobadii lagu wada heshiiyey maadaama Somaliland ay dooratay hannaanka dimuqraadiyadda waxay ku fadhidaa waxa badani waxay doortaan ama aqlabiyadu marka sidaa daraaddeed mar walba hogaaminta waxa yeelanaya cidda aqlabiyadda badan majority minority inuu isticmaashaa Maraykan baa isticmaala Ingiriis baa isticmaala dowladda waa isticmaashaa marka taas waxay ku fadhidaa hannaanka aynu dooranay dimuqraasiga in cidda marka aqlabiyadda haysata ay hogaamintana yeelato Cabdiraxmaan wuxuu yaqaanaa waxa la yiraahdaa collective leadership leadershipkiisu waxa weeye leadershipka warweynu simanahay ma kala sarreeyno inuu walba waxa kula tahay sheeg marka waxa weeye waa in aaminsan waxa la yiraahdaa collective responsibility and collective leadership Soomaalidu tira ma la rag waa baaho ma la rag wax kastoo taqaanin inuu kaaga aqoon badan marka haddana raadsan aqoonta aanad oo war hebel wada inta ugu dhaamee maxay kula tahay nin walba meel ku wanaagsan yahay marka taa uu yaqaanaa dadka uu maali kara aqligooda iyo maskaxdooda uu maali kara oo ku chance kan uu bixiyaa aynu jaleecno 3 natiijo oo ka dhashay isbahaysiyo siyaasadeed oo uu asaas ka yahay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro 2005 waxay heshiis isbahaysi dhexmaray xisbiyada u ciidiya kulmiye labada xisbi waxay isla garteen inuu musharax u noqdo gudoomiyaha baarlamaanka mudane Cabdiraxmaan Cirro oo ka tirsan xisbiga golaha wakiilada mudane Cabdilcasiis Maxamed Samaale labada waxay ku guuleysteen gudoomiyihii shirgudoonka oo lagu doortay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro oo xilligaasi ahaa xisbiga u ciid halka labada gudoomiye ku xigeen ee shirgudoonka la siiyay xisbiga kulmiye oo mucaarad ahaa waxaana isbahaysigaasi ay kaga adkaadeen xisbigii talada dalka hayay ee udub xisbiyada ayuu midna gaari waayay awoodii looga baahnaa dabadeeto annagu cid ahaan waxaan markiiba garanoo noo muuqatay annaga la'aantayo inaanay waxba qabsami karin maadaama labada xisbiye kale ay cul yihiin oo ishayaan oo ay kursiga isku hayaan inaannu annagu jookarka noqon karro garashadaas ruuxeeda dee raggaas imikaba tartamaya ee dee cirre uu ka mid yahay ayaa waxay keeneen inay gartaan inay jookar yihiin kuna adkaystaan oo kala fur iyo kala jijibin
ay ka adkaystaan inaan la kala jijibine ay ku qaataan kursiga sida ah dabeetana sidiiba ku suuro galay dhibaato kastaba ha ka timaadee sidiiba ku suuro galay dabeetana waxa dhacday in markii hore aanu ku horeynay xusbigii udub oo musharaxa xusbiga uu markaa maaragtay gacan saar la yar lahaa dabadeetana way diideen iyagu wixii looga baahnaa inay fuliyaan oy gartaan damac baa galay inay labadaba isku darsadaan shirguddoonka iyo labada kaleba inay wada qaataan saddexdaba inay qaataan labada xusbe kalena badda dhigaan dabadeeta way ku adkaatay waanu ka tagnay waxaanu u tagnay xusbigii kale aan nala qaatay inay labadana aanu siinay iyaga annaguna aanu shirguddoonka qaadanno haddaan ku noqdo 2005tii waxay horta doorashadii ugu horreysay baarlamaan la doorto somalilan 3 xisbaa tartamay midna aqlabiyadda muu haysan keligii marka labada israaca ayuunbaa noqonaya aqlabiyadda sidaa daraaddeed ayuu ku samaysmay isbahaysigu waxaana ku heshiiyey xisbiga ucid iyo xisbiga kulmiye inay isbahaystaan oo ay noqdaan aqlabiyadda golaha wakiilada xilliga xisbiga udub wuxuu helay 33 kulmiyana 28 ucidna 22 isbahaysigaas wuxuu suurtageliyey in xisbigii ugu tirada yaraa marka la eego 3 xisbi uu qaato guddoomiyaha golaha wakiilada taasaana suurtagelisay 2021kii waxay heshiis isbahaysi dhex maray xisbiyada waddani iyo ucid waxay ku guulaysteen 2 kursi ee ugu sarreeya shirguddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale maayarrada ugu badan magaalooyinka oo lagu soo dhisay isbahaysiga mucaaradka isbahaysigaasi waxa uu si awood leh ay ugaga guulaysteen xisbiga talada dalka haya ee kulmiye tijaabadii ugu horreeyay waxa la sameeyay 2005tii tijaabadii labaadna waxa la sameeyay 2021kii way mar labaad iskaashadeen xisbiga ucid iyo xisbiga waddani oo aan bariga jirin 2005tii taasaana suurtagelisay in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka labaadba ay helaan isbahaysigaas horta cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro musharaxa madaxweynuhu waa isbahaysigan markii koowaad mahayne hadda ka hor buu abuuray 2005tii kii aan ku soo baxnay haddaanu imaadee 2021kiina ilaa maanta isbahaysigu doorar kala duwan buu qaadanayay waana xabagta isku haysa ama santarka ama ubuucda isku haysa waxaanu ahaa kolba dhinac ula ciirayay uu ka shaqaynayay waana nin iskil u leh xagga diblomaasiyadda oo askarta iyo diblomaasiyaddu waxay kula duwan yihiin askartu inta badan wuxoodu waa xoog iyo qarjajac iyo hanjabaad iyo darjeers laakiin isagu wuxuu xabagta isku haysa doorashada golaha wakiilada ka hor waxaa muddo kooban ku dhacday doorashadii golayaasha deegaanka fulintoodii taasoo degmooyinka dalka ee ugu waaweyn sida boorama hargeysa burco ceergaabo laascaanood ay isbahaysigu ku guulaysteen inay fulinta ka dhigaan maayarkii ku-xigeenka waddani iyo ucid taasoo ay ka mid ahayd degmada burco islamarkaana shir weyn oo dee saxaafadda goobjoog ka ahayd hargeysa lagu qabtay taasoo tilmaamaysay faa'iidada isbahaysigu leeyahay fahamka siyaasadda ee dimuqraadiyaddu leeyahay iyo biseelka siyaasadeed ee cabdiraxmaan oo ilaa markaa hore ucid ahaa markii uu guddoomiyaha golaha wakiilada noqonayey islamarkaana qayb ka ahaa aasaaskii isbahaysiga siyaasadeed ee u horreeyey somalilan sannadka 2024 waxaa isbahaysi baarlamanka dhexdiisa uu dhex maray xisbiyada waddani ucid iyo ururka ka waxaana isbahaysigaasi ku guulaystay in si awood leh xildhibaanada aqlabiyadda isbahaysigu ay ansixiyaan 2 jeer xeerarka doorashada oo soo afjaray muranno soo jiitamay oo ku aadan qabsoomidda doorashooyinka musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa mar kala bilaabay qorshihii looga guulaysan lahaa xisbiga kulmiye
waxaanu qalinka ku duugay isbahaysiyo siyaasadeed oo noocoodu ku cusub yihiin Somaliland kuwaasi oo jaangoyn doona natiijada doorashada madaxtinimada ee dalka ka dhici doonta 13 November. xisbiga wadani iyo ururka ka ayaa kala saxeexday heshiis naadir ku ah siyaasadda Somaliland kaasoo markii ugu horreysay taariikhda ay isbahaysi siyaasadeed samaystaan xisbi hore u jiray iyo urur siyaasadeed cusub oo aan weli xisbi noqon. ujeeddada ugu weyn ee isbahaysiga naadirka ah ayaa ah in 14 sannadood kadib uu isbeddel dalka ka dhaco madaxweynaha Somaliland ee 5 sano ee soo socotana loo doorto musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro. labada jeer hore 2005-2020 waxay iskaashaday laba xisbi laakiin isbahaysigan waa mid ku cusub taariikhda Somaliland markii ugu horreysay waxay iskaashaday xisbi jiray iyo urur xisbi u tartamaya taas maadaama xilli doorasho lagu jiro waxay calaamad u tahay halku dhigga xisbiga ah Somaliland la wada leeyahay waxaan u furan yahay oo kale cid kasta oo ururada ka tirsan oo ku soo biiraysa isbahaysigaas oo rabta isbeddel inuu dalka ka dhaco oo isbeddel doona wuu furan yahay marka isbahaysigan wuxuu kaga duwan yahay wuxuu doonayaa inuu beddelo kuwa hore waxa la beddelayay ra'iisul baarlamaan baa lagu tartamayay ama la beddelayay maanta madaxweyne la beddelaya marka wuxuu kaga duwan yahay koow madaxweyne la beddelaya laba shacbigu inuu wax wada yeesho oo isbeddelka doono ayay tahay fariin waxay fariin u tahay shacbiga in isbeddelku iman karo marka inta badani ay israacdo. isbahaysigan ka iyo wadani ma aha ujeedadiisu inay isku biiraan laakiin waxa weeye waa inaynu iska bahaysano doorashada madaxtooyada ee idam ilaahay qabsoomaysa sanadkan dabayaaqadiisa 2024 isbahaysigani ujeedadiisu ugu weyni waxa weeye hadafkiisa iyo himaladiisu inaynu dalkeena ka hirgelino hanaan siyaasadeed oo hufan kaasoo ummadeena u horseeda horumar iyo hodantinimo ujeedadeenu waxa weeye inaynu adkayno midnimada iyo wadajirka ummadda Somaliland ujeedadeenu waxa weeye maaha inaynu xagal daacinayno dawladnimada iyo qarannimada inagu waxaynu nahay kuwa difaacaya dawladnimada iyo qarannimada ayaynu nahay qarankan qabkiisii iyo sumcadiisii dhaawac baa gaadhay waxaynu kuwa soo noolaynaya sumcadeena iyo dhagteena waxaynu nahay kuwa u halgamaya inaynu magacsan yeelno in ummadeenu isku duubnaato in kala qoqobka iyo qabyaaladda aynu la dagaalano waxaan u aragnaa runtii inay tahay ka xisbi ahaana in ay doortaan ururka ka inay isbeddelka wadani uu horkacayo musharaxa madaxweynuhu uu horkacayo inay doortaan inay kula bahoobaan oo la dhaliyaan oo guusha la yeeshaan oo la soo saaraan waanu ku faraxsannahay in xisbiga uu noqdo xisbiga iyagu xisbi ay doortaan ururadu inay nala shaqeeyaan oo nala soo saaraan kuwa kalena waanu soo dhaweynaynaa. xulafadan siyaasadeed ee uu qaabeeyey musharax Cirro ayaa tartanka doorashada madaxtinimada ka dhigi doonta mid dhex mari doona xisbiga kulmiye oo keligii ah iyo shacabka Somaliland. taariikhda Somaliland heshiiskani waxa uu tilmaamayaa waxa dadku ama aqlabiyadda shacbigu ay doonayso wuxuu fursad siinayaa aqlabiyadda shacbiga oo ay metelayaan maanta ururo iyo xisbiyo waxaanay taasi muujinaysaa go'aanku inuu noqon doono in shacbigii Somaliland ay metelayaan isbeddel doonku iyo xisbiga kulmiye keligii ay tartamaan. isbahaysiga isbeddel doonka Somaliland waxa uu u furan yahay inay ku soo biiraan ururada siyaasadda si ay qayb uga noqdaan isbeddelka la doonayo inuu dalka ka dhaco 13 November. isbahaysigu kuma koobna ka iyo wadani waa isbahaysi u furan dhammaan
xisbiye ururada siyaasiga ah maadaama aan xisbiyadu isku biiri karin oo taas waxay tusinaysaa cid kasta oo doonaysa isbedelka inay taageerto uu furan yahay fariintaan u dirayo shacbiga Soomaaliland waxa weeye dalku maanta aqlabiyadda Soomaaliland waxay isku raacsan tahay in isbedel yimaado marka waxa ka codsanaya dhammaan shacbiga Soomaaliland iyagoo u kala hadhin inay taageeraan codkooda ku taageeraan isbedelka codka madaxweynahana ay aniga igu taageeraan aniga hogaaminaya